Dhibanahan ayaa waxaa lagu magacaabaa Cumar Cabdalle Cabbaas wuxuu ka mid ka ahaa dadka ka xamaasha gudaha magaalada Laascaanood xilli uu gaari u waday uu shil ku galay gudaha magaalada Laascaanood ayaa waxaa loo qabsaday magtii khasaarihii halkaasi ka dhashay. Ninkan ayaa waxa uu magaalada Laascaanood deganaa ilaa sanadii 1991 isagoo ka soo barakacay koonfurta waddanka Soomaaliya. ehelada ninkan ayaa waxay iyagu aad ugu dayacan yihiin gudaha magaalada Laascaanood iyadoo ay ku ceen qaar ka tirsan culimaadoodiinka gobolka Sool sidii loo furdaamin lahaa sideenta ninkan loogana bixin lahaa qaantan lagu leeyahay. ugu horeyn waxa halkaasi ka hadlay Sheekh Aadan Weli walaalayaal ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala diinta islaamka ina fahamsiyo muslimiin inaga dhigay inta kadib waxaan isu dardaarmaynaa cabsida Allah subhanahu wa ta'ala sida Allah leeyahay wa ta'aawanu 'ala al-birri wa taqwa ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إلى كعبسية يوناق يسوق الميستا حماطة يدنبي يسوق الميسانينا إن هل كان وحنا دكسو قد بيننا نين ليلة هذا عمر عبد الله علي أو نينكاس أو حدنا مضل بصنا أو حلاقة نينكاس أو كحدن شالكا مقالة لاسعانود مقالة مدح قبل كسول نينكاس أو لها مركي أفرحاس أيام مركا على حري markii uu wiilka shil gaari uu waday uu jirsiyay wiil marka kadib waxa loo haystay konton halaad inuu isagu bixiyo konton halaadna sida maxkamaddu ay ku xukuntay ninkii gaariga lahaa marka kontonkii halaad uu iska bixin kari waayay guri ay lahaayeen ayaa la soo xaraashay oo la soo iibiyay oo marka gurigaas marka ku yaalay oo $2,000 baa guriga lacagtiisii la soo gaarsiiyay ninkii wiilka dhalay 2,000 baa wax lacaga soo gaadhay anagu markii ninka aanu xaasaskiisa iyo caruurtiisa iyo dayaca haysta aragnay waxaanu u gurmanay anagoo odayaal iyo culimo isku jirta inaanu ninka lacagta raadino lacagtaasi markaa $15,000 ah $13,000 baa haray markii 2,000 la bixiyay 13,000 waxaanu magaalada Laascaanood ka ururinay oo dad muxsiniina iyo hay'adaha aanu ka ururinay iyo dadka ganacsadayaasha wax ka mid ah waxaanu ka ururinay lacag $6,000 annagoo saddexda nin oo gudida hawsha ku jiray Maxamed Macallin Faarax oo garabkayga taagan marka saddexdayadaas oo gudida ka mid ah lacagta ururinaysa saddexdayadaas lacagta u guntanay inaan ururino si ninka jeelka looga sii daayo marka lacagtaas $6,000 baa noo hirgalay waxa naga dhiman $7,000 $7,000 waxaanu ka codsanaynaa ilaa iyo hadda ninkaasi waa xidhan yahay marka waxaan ka codsanaynaa dadka muslimiinta ah lacagta ilaa la helana la sii deyn kari waa in lacagta la soo diro oo dadka muxsiniinta ah ee muslimiinta ah ay soo diraan qof caayda u sahla ilaahay fi aakhiraba waa u sahla man nafasa an mu'minin kurbatan nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyam qofkii qof muslima dib haysata ka fayda ilaahay wuxuu ka faydayaa dhibta qiyaamay rasuulku leeyahay alayhi salaatu wasalaam ilaahay waxaan ka baryaynaa marka ilaahay dhibta inuu idin ka faydo marka sidoo kale kanaalka channel waxaan ka codsanaynaa Somali channel inuu arintaas sii daayo oo waliba habeenno noogu daro waqtiyada waqti indoora noo soo celceliyo waqtiyo dheer si dadka aan fariintayadaasi u wada gaadho muslimiinta ah haddii hal qof bixinayo haddii dad badan ay isu kaashanayaan waxaa lagu soo hagaajinayaa lacagta akoonka dahabshiil 345 oo guddiga wacyigelinta iyo nabadaynta dadka barakacayaasha ah ciwaankeedu yahay marka mar hore aan u furnay dadka dhibaataysan gabdhuhu ninka ka xidhnaa ilmaha yar laga jiray waxaanu baryaynaa ilaahay waa la baryayaa ka soo idinkan waxayna weydiisanaynaa in kastaan anaga dad waxaystaan ahayn gobolkana aanu dhalan aanu barakacayaal ku nahay ninkina naga xidhan yahay muddo 2 sano wax yar la aanu hayna 13 ciyaal meeshan loogu hayo hooyadii aabihiina waa hore uu dhintay hooyadiisina waa yeeltahay waxba qaban karinay joogto marka walaalayaal waxaan niga baryaynaa inay weydiisanayna inaad soo caabisaan adduunyada ku baxsataan aakhira iniga horeeya annagana waxaanu rajaynaynaa inuu ilaahay khayr inisiyan habeen iyo maalin igu baryaynaa marka walaalayaal ilaahay khayr ha inisiyo ninka muddo wuxuu xidhan yahay 2 sano wax yar baa ka dhiman 2 sano ilmihii caana siiyay wax daryeela aanan joogin hooyooyinkoodana sida ay yihiin waxay soo helaan caruurtii iyo ninka xidhnaa u kala barayo marka walaalayaal waxaan niga baryaynaa inaad soo caawisaan ninka meeshaasna ku dhigtooday muddada 2 sano xidhan annagina aan ku dul baabaanay oo ku dul dayacsanahay dayaca ilaahay waa inaga dul qaadi kara ka soo kale laakiin waxaad noo qaban kartaan
walaalayaal inoo qabta. Cabdikariin Nolol, Somali Channel TV, xarunta magaalada Laascaanood.